فروناس رمضان مبارك مدن وزير مدن التريال بعض الصحافة والسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جعلنا عنونا كهالله وحن جعلنا عنونا كهالله أما وربحين كوبان الكسيو حولها أمان iyo xasilinta magaalada Muqdisho waxaan rabaa in aan u mahadceliyo dhamaan ciidamada isku dhafka ah ee ka kala socda nabadgelyada booliiska iyo militariga ee maalmihii la soo dhaafay howlaha istiraatiijiga ee amni sugista ka hay magaalada Muqdisho kuwaas oo guulo waaweyn laga soo hooyay runtiina shacabku ku nastay waxaan jeclaan lahaa inaan qof iyo guud ahaanba aan u mahadceliyo waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa degan magaalada Muqdisho ee howlaha socda ka qayb qaatay gacan ka geystay u dul qaatay ayagana waa mahadsan yihiin waxaan jeclaan lahaa in aan idin sheego haddii aad tihiin shacabka in dawladdiina iyo ciidamadiinu ay midaysan yihiin una taagan yihiin howlihii loo igmaday oo ah in ay sugaan ammaankiin oo ay cabsida ay idinka ilaaliyaan oo magaalada Muqdisho muddo dheer daruufo adag ayay soo martay meel kawaan ah oo dadka lagu waxyeeleeyo oo lagu dilo oo maalin kasta iyo saacad kastaba dhiig qof muwaadin oo Soomaaliyeed oo dambiile ah oo aan wax uu galabsada la arko oo ku qubtay waxa waxaan rabnaa meel raxmadeed oo nabadeed oo Soomaalidu ay ku faantaysan ka faanan inay noqoto wajiga ay leedahay inaan ka bedelno waxaan rabnaa magaalo nolol iyo nabad ay ka jirto inay noqoto taas waxay u baahan tahay marka arrin loo dhan yahay oo laga wada shaqeynaayo oo dawladda khaasatan ciidanka ku howlan howlaha ammaanka gacan laga siiyo loo dul qaato haddii ilaahay yiraahdo marka waxaa la rabaa annaga shaqada aan qabanayno shaqo niisa ma ahan shaqo booliis ma ahan shaqo military ma ahan ee waa shaqo si caam ah xukuumadda ugu idmatay ciidamadaas isku dhafka ah marka sababta hadda inta aan u taaganahay waxay tahay inaan muujino sidaan howlahaas aan ugu midaysannahay oo aanan ugu kala raaricin oo qolo qaas ah oo loo tiirinayo aysan jirin ciidanka iyagu wuxuu ku shaqaynayaa duruuf adag marka waxaa la rabaa in lala fahmo oo lala shaqeeyo dardaaranka aan rabo inaan u soo jeediyo wuxuu yahay ciidanku inuu si fiican oo asluub leh oo naxariis leh shacabku ula dhaqmo haddii shacabku uu arko qaladaad iyo gafaf iyo waxyaabo hadda aanan loo baahnayn annaguna waxaan ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan saxno Rome was not built one day ama arrinkan hal maalin lagu masaxi karo hana loo dul qaato waxaan rabnaa oo kaleeto ciidamada howl ayay ku jiraan hawshaasna howl laga gorgortamaayo ama qof loogu turaayo ama qof hadda loogu dilayo ma ahan qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan una hoggaansamaan amarkooda magaalada waa la socotaan howlaha ka socda waxaa go'aamiyey golaha wasiirada ee howl aniga iyo General Saacid iyo General Cirfiid Jamaal Cirfiid ay go'aamiyeen maahan annagu waxaan nahay dad amarkii un baa fulinaynaa marka wax hadda la shaqsiyadeynaayo maahan magaaladan annaga kama rabno tuuto qoray daba jeexa cabdibilo ordaaya ciidan socda meeshaan xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato waji caasimad meel nabada oo dadku oo si nabadahoo yani ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku maro ciidamada marka haddii ilaahay yiraahdo marka howlo bilaabato isqabqabsi iyo iska hormaadi wax waa jiri doonaan laakiin waxaa laga rabaa si degan oo xigmad ku jirto oo walaalnimo leh oo Soomaalinimo oo la isla fahmaayo in loo gudbo dabcan inta howlaha ku jira caqabadaha yimid caqabadahaas ayaana kalifay inaan maanta meeshaan imaano qof ama haweenaado ama hayra loogu dulqaado doono inuu qashqashaado howlaha ammaanka ma jirto waxaan rabaa qof ku gaba karta magac ciidan ma jirto qof ku gaba karta magac mas'uuliyad dawladeed ma jirto qof kan bari noqon karta ciidankaas ma jirto amarkaasna waa amar guddiga amniga qaranka iyo golaha wasiirada ay bixiyaan waxaan rabnaa marka si magaalada nabad ay u noqoto waddanka oo dhan nabad u noqdo ciidankaas in la shaqeeyo haddii annagu aan iska adkaanin oo ciidamadeena iyo dadka howlwadeennada ah ee dawladda ka shaqeeya aan ka adkaanin oo aan dhaqan dawladaha u yeelin shabaabka iyo cadawga iyo dadka dalkaanu inuu ilxun ahaado oo weligiis meesha uu joogo ka kicina kama adkaan karno
haddii ilaah yidhaahdo marka howluhuna hadda soo socdana dabcan waxa aan bilaawno waa bilaaw si xoog badan ayuu bilaabmi doonaa marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan si xoog badan micnaheeduna waxay tahay meel iyo qof loo turaayo in ammaankaas la sugaana ma jirto haddii ilaah yidhaahdo dabcan dareen badanaa jiri karo oo la leeyahay dadkii madaxda ayaa ilaalinaya habkii lagu ilaalin lahay oo ammaankooda lagu sugi lahay ma dayacayno mas-uuliyaddeenana kama gaabin doono madaxda iyo mas-uuliyiinta qaranka waa la bortagarayn doonaa waa la difaaci doonaa iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed annaga dadka aan la u shaqaynayno oo caway maalin aan u taaganahay oo sharaftooda inay soo noqoto aan rabno oo inay nabad ku afuraan aan rabno oo inay nabad ku nooladaan aan rabno oo ay walwalaan magaalada aan ku joogno waa dadka degan waayo ee hadda qof si gooni ammaanka muraad ugala ma jirto haddii ilaah yidhaahdo annaga muddo kooban waxaan rabnaa magaalada zero gun in laga dhigo qoray la-aan in laga dhigo shaksiyan aniga ammaan waxaan aqaanaa inuu ka bilaawdo qorigoo la dhigo inuu ka bilaawdo dawladda awood leh inuu ka bilaawdo cadaalad jirta inuu ka bilaawdo inaan ilmaha aan daba sii soconno oo aan ciyaal shabaab oo masaakiina aan ceyrsanno lama rabee dadka lama taabtayaasha ah oo dalkan ishaan u yeelay meel kasta ha joogaane ama gudaha jooga ama dibadda jooga in la fara saaro haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa in waxna la fahmo ciidanku mas-uuliyaddiisa waa gudan doonaa aniga shaksiyan nin u turaaya shaqada lay diray inaan qof aan u hortaaga ma jirto dad badan aa soo qabyaaladaynaya hawsha dad badan aa weji kala yeelanaya annaga shabaab iyo shabaab eke dawlad diida waa la diriraynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa magaaladan labadii maalmoodoo lasoo dhaafay nabadda iyo naruuraha laga helay inay sii xoogaado inay soomaaliya dhan ku fido waxaan rabnaa cadowga in la kufsado ma rabna asagana ka adkaan rabna waana mahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu